ka baqay buu yiri wiilkayga Yaxya oo meesha joogay inay igaga joogsato farasku subaxii buu nabiga u sheegay saasaa dhacday markii salaadu ka baxo fiiri wuxuu arkay waxyaalo sidii ma garanaysaa nalal fara badan oo isku yaallo cirka u sii duulay nabigu u sheegay malaa'igta ahayd buu inuu soo degtay oo quraankaaga dhageysanaysa malaa'igta ahayd marka insha Allah aan ku dadaalo oo quraanka dhikrigiisa aan ku dadaalo oo khusuusan ayatuha al-ummahat gurigeena daa'iman quraanku ha ka shidnaado ashghalu quraan kan ugu hatta ajhizadan ilaahay maanta nasiyay iyo raadiyaashan iyo computerka iyo waxan hada iska shido quraan oo iska shaqeeyo caawo dhan ka shaqeynayo khayr badan baa ku jira way fiican tahay inaan dhageysano oo la socono oo hadii goor ma garanaysa aanu nastamicu ilayha laakiin ala aqal haday hatta guriga barakay u noqonaysa nuur iyo khayr badan bay u noqonaysa waxyaalo badan iyo shayaadiin iyo jinni iyo cafaarid fara badan oo wadamadan xoog ku leh ilaahay waa kaaga leexinaya xijaab buu kaaga dhigaya ee quraanka aan aqrino daa'iman gurigana xalaqad tacliim hal la sameeyo xalaqad tacliim hal loo jeeda inaanu anagoo wada dhan ilaa reerka qoyska wax kasta waa la isugu yimaadaa sheeko waa la isugu yimaadaa telefisyon iyo film la fiirsanayo waa la isugu yimaadaa hawlo kale waa la isugu yimaadaa laakiin usradu inay dhikriga ilaahay isugu timaado waa yartahay warbal ilaahay aan xusnaan isu nimaadno odaygii iyo islaantii iyo ilmihii aan fariisano haye aan quraanka akhrino adiga suuradan akhri anda suuradan akhri aan isu saxno aan u akhrisano wa halaqatu dhikri hadith nabi alayhi salatu wasalam kuwa waliba la tusinaya fadaa'il al-a'mal a'maashan fadligooda suurada markaad akhrido intaasaad helaysaa xarafka markaad akhrido 10 xasana ilaahay ku siinaya hadaan wada akhrisano ilaahay subhanahu wa ta'ala رحمة يا نحريس بسود الجريمة ملائكة بسود الجيش تغشانا الرحمة قولي يا شباب نحريس بسود الجيش ملهان طبعا يا هذا عالم كأن كل جربة سيدي سبب ملك استبد ميليه إنها وصل بدنا خلاف كبدن خلاف بس مو بدنا يعني إسقاب الشذا نك إنك إسئرج ما قرنا يسأل بهذا سو مو فربنا waxyaalo badan cilaaj waa loo daydayaa ama cilaajiyo odayaal loo fariisiyo ama masaajidka la keenaa ama sheekh loo sheego laakiin waxaan qabaa nin iyo naag haday soo sheegtaan oo dhahan dhibaata naga dhex taaganay halana waxaad leedihiin 10 bari u qora oo dhikri ah horta bal guriga intaydan anaga noo imaanin guriga xalaqad tacliim ka ooga oo wada fariisto oo 10 bari waraqdan dhakhtarnimada qaata bal horta 10 ka bari kadib noo imaada saasa fiican سهدي الله يروح عن لينا حل بقى إيمان لأن ملائكة سود دقيش رحمة سود دقيش نحريستي مركب ورا مغنيت بس سود دقيش لا بدي يسكو حنا خزاني دواب يسون حريسنا المركب دب لأن النبي يقول عليه ما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده غشتهم الملائكة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة نحريس بسو قليس نحريستي با قلوبته ذا يسون دافيسا المهي iyo waalidkii iyo ninkii inaagtiis qabay waas jeclaanayaan awal meesha dhibaato ka dhaxaysa wa bil yaqiin dhaba yaqiinta dhabta waxa weeye in hadalka nabigu uu yiri aad sidiisa u qaadato qasaan idin sheegaya bari baan anagu meesha afgooy jamaa oo khuruuj fi sabiilillah u baxday barraayaan oo xamaran ka baxay xaqantay marka nin waxa ku jiray dadkan oo cadcadka oo reer afgooy ah ayaa wuxuu ahaa nin nashiid oo daaci oo khuruujkaas iyo baxo sheeku ka sheekay wuxuu yiri aniga sababtaan khuruujkan ku bilaabay markii hore wuxuu yiri nimankan aad u lama haynino masaajidka markay yimaadaan xataa geesi waxbaan uga leexleexan jiray waxa dhacday wiri niman Pakistan ka yimid masaajidkan afgooy ku soo tagay anna wuxuu dukaan ba meesha ku leeyahay tafsiir